السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. maanta waxa weeye nimankii SSB ahaa habar jecladii huwantii soo weerartay hambalyo weyn baan u sidaa. Heestii Somaliland lahayd ayaan maanta iyaga siinaya oon leeyahay qaata. Heestan siinaya waxa weeye sanka taagadaa soo dhacsaday heestii la oran jiray weeyaan. Hadda calamaantan aad arkaysiin ama ma garanaysa maradan aad arkaysiin waxa weeye waan calankii dameerku ku dhaxaarayay ama calankii waxa SSC lagu magacaabi jiray SSC khaatimo loo oran jiray guriyihii ay lahaayeen beesha dhulbahante ayaa maanta inta loo daatay ee ciidamada SSB sida gaarka u tababaran intay u daateen calamaantii bay ka soo fureen. bal ka waran maxaa u hadhay niman astaantoodii la soo furtay oo degta lagu wato. sidaan idiin sheegay nimanka SSB na maanta waxa u baxasa heestii ahayd sanka taag adaa soo dhacsaday. balaan ku soo noqdo beesha garxajis hal qodob baan odhanayaa, sidoo kale dhaqanka habar jeclaa hal mid baan odhanayaa. waxa weeye waxaan u baahanahay laakiin marka hore inaad muuqaalkan iyo gaarsiisaan beesha garxajis iyo salaadiinta beesha habar jeclo. ha iga hadho maanta waxaan leeyahay marka koowaad ha iga hadho Muuse Biixi ayaa dagaal beelaha habar jeclo ee beriga dega iyo beesha garxajis ee beriga degta Muuse Biixi ayaa dagaal ku wada. ereygaas horta ha iga hadho ha siqiiro ereygaas wuu siqiirayna. waxa weeye madaxweyne Muuse Biixi idinkun baa la garan waaye cadow baa darafiyada haystay. nimanka sool ka dagaalamayay niman ab ila awow isku aaba yeedhay bay ahaayeen oo isku awow yeedhay, balse beesha garxajis oo sanadkaa maanta kursi doon oo kursi u socda balse wadadii loo marayay aan garanayn ayaa Muuse Biixi ku yiri Muuse Biixi dagaalka uu maanta beelaha uu Somaliland galinayo waliba gaar ahaan beelaha dega bariga Somaliland waa mid cimri dherer kaga raadinayo oo kursigiisa cimri dherer ugu sameeyo. balse maanta taasi waxa weeye maanta taasi way dhamaatay. Muuse Biixina wuxuu ku taagnaa xaq isagoo ku taagan bal isagana la dagaalamayay. beesha garxajis su'aashana imika idii weydiinayo ha iga jawaabto. waxaan leeyahay beesha garxajisow cid kastoo xisbiga wadani taageersan baan waliba weydiinaya su'aasha. maanta ninka doorashada Somaliland dhowr iyo 10 cisho ka harsan, dhowr iyo 10 cisho 13 cisho ka harsan ilaa 12 cisho ninka maanta diidan in doorasho Somaliland ka dhacdo ee soo weeraraya ee gobolada ma garanaysa ciidamada isku hor fadhiyaan soo weeraraya warkaas ma Muuse diid baa mise waa Somaliland diid. si caafimaad qabto uga jawaab. haddii aad si caafimaad qabto uga jawaabi weydi adigay ku taala. waxa weeye waxaan leeyahay haddii ay tahay in Muuse Biixi nacayb ay nimankaasi noo soo weerareen waa arrin kale weeye. haddii ay aad indhihiinu ama maskaxdiinu go'aamisay in loo soo weeraray Somaliland nacayb maanta waxa la diidayaa inay Somaliland wax fiican caalamka u gudbiso, wax fiican laga arko. sababta loo diidayaa sidaas doorashada huwantu ay diidan tahay waa taa. sanaag inay ka dhacdo ma rabaan, sool galbeedkeeda inay ka dhacdaan ma rabaan. maxay rabaan? ma Somaliland bay diiday mise Somaliland mise Muuse Biixi bay diiday? taas waa taa. waxaan leeyahay nimankii leefleefayay beesha dhulbahante beesha harti iyo beesha daaroodba liibaan daba jiric wuxuu yiri 7 reer Sheekh Saxaaq waxa iga xiga dhulbahanta kaga qarsoonahay wallahi buu. inna lillahi maantana doorashadii ay ku doonayeen kursiga madaxtooyada inay ku tagaan waxa qalalaasa gelinaya beesha dhulbahante oo walaalahood wata. liibaan daba jiric iyo intii kale u fataali jiray maanta godkooda ay biyo ugu soo galeen. waxaan leeyahay hambalyo nin kastoo leefleefi jiray beesha daarood iyo beesha dhulbahante iyo beesha hartiyeedba hambalyo baan leeyahay reer Sheekh Saxaaq. ugu dambeyn waxaan la hadlayaa dhaqanka beesha habar jeclo. waxaan leeyahay maalinta nin habar jecli uu qof dilo waxaad u hadashiin sidii in malaa'ig iyo nabi la laayay bay u hadashiin oo markaaba tawbad soo tiraadaan. balse maalinta nin habar jeclaa kibir lagu dilo, nin habar jeclaa la soo weeraro, deegaan habar jeclaa la qabsado waxa weeye kama hadashiin. sababtan anigu ma garanayo. bal waxaad leeyahay anuu u jawaabi maaye bal waxaad leeyahay yarkan caafimaadka qaba ee ka dhashay beesha habar jeclo iskuma jirtay bal ileega salaadiinta fidnoobay ee Muuse Biixi ka soo horjeeda isagoo u jawaabaya
والإلهي reer SSB deegaamadeennaaas inay la arkeen mooyaane maalinta weerar laynagu soo qaaday colaadi jirto salaadiinteennu way dhuuntaan saxaafadda way ka dhuuntaan meel alla meelay marayaanoo jaan iyo cidhib dhigan lama arkayo haddiise innagu aynu weerar qaadnaba oo qof huwantaa aynu dillo salaadiintii ugu waaweyneed ee suldaan siciid iyo buur madow iyo baa soo fadhiisanaya iyo kuwii kale la socdayba waxay odhanayaan nabaday huwanay walaalayaal midhkaasi qalad buu ku dhintay degdeg baanu ninkaad arkaysiin waa nin ka dhashay beesha habar jeclona iskuma jirto waxaa jiray dad caafimaad qaba oo u arkaya dagaalka lagu soo qaaday Somaliland inuu yahay mid Muuse aan lagula dagaalamayn balse lagula dagaalamayo Somaliland marka Somaliland lala dagaalamayo inagu waji marihin waynu israacsanahay balse maanta ninka Muuse la dagaalamaya waa nin meel dhow ka dagaalamayo meel dhow ka dagaalamaya maanta ma aha maalintii Muuse lagu jeedi lahayd Muuse mucaarid lagu noqon lahaa balse waa maalintii aynu nimankayna soo weeraray ee doorashadeeni qalalaasa iyo kibirka ula yimid inaynu meel iska saarno waxaan u hambalyeeynaa ciidamada SSB waxaan u hambalyeeynaa ciidamada qaranka Jamhuuriyadda Somaliland dhammaan ee maanta gurmadka muujiyay waxaan leeyahay maanta waan ogeyn nimankii dhulbahante ee walaalahoodu watay in maanta dagaalka lagu jabiyay oo waliba inta guryahoodii loo daatay calamaantoodii la soo furtay balse waxaan leeyahay fariintan u diray waxa weeye ciidamada Somaliland iyo ciidamada SSB ba yaanan laydin gaadin meel kale idin ka soo weerari karaan waxay ciidamada SSB na guul baan u rajeynayaa war waxaan leeyahay kuwa Muuse iyo Somaliland isku qaldayo candhuuftiina dib u liqa